kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo amar siiyay taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dagaalka u dhaxeeya Cumar Finish iyo Cabdullaahi Carab oo xoogeystay iyo sidoo kale waxaad warkeena aad ku daawan doontaan sarkaal ka tirsanaa maamulka Puntland oo lagu dilay magaalada Garowe intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabinteena tooska wararkii ugu dambeeyay Soomaalida haddii aad nagu cusub tihiin waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan barta YouTube channel-keena aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada hadda iyo jeer sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqon daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena daawada qodob walba warkan kamid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose comment-ka noogu reeb hagaaga aynu ku bilaabno madaxweyne Farmaajo ayaa amar siiyay taliyaasha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada oo ah halka looga arrimiyo talada Soomaaliya xalay shir looga hadlayay amniga dalka kula qaatay saraakiisha ciidamada iyo la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirkan degdega ah waxa uu isugu yeeray uu la qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Duwa Yusuf Raage taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijaar taliyaha ciidanka nabad sugidda ah ee uu magacaabay Yaasiin Faray iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Abdiraxmaan Aadan kulanka madaxweynaha uu la yeeshay taliyaasha ciidamada waxaa goobjoog ka ahaa isla markaana qayb ka ahaa la taliyaha cusub ee amniga uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ujeedada shirkan ayaa ahaa sidii looga hadli lahaa isbedelka degdega ah ee siyaasadeed ee dalka ku soo kordhay waxa wararku ay sheegayaan in sidoo kale shirkan looga hadlay gulufkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka wadaan deegaanada ay ka arrimiyaan ururka Al-Shabaab shirka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu la qaatay taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray ka hortagga qalqalgelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka iyo sidoo kale ka hortagga abaabul ciidan oo la sheegay in qayb ka mid ah duleedyada magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka soconayaan isla markaana ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka ugu dambeyn kunaanadka kulankan ayaa la sheegay in la isku afgartay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya booliiska iyo asluubta ay si wadajir ah u yeeshaan iskaashi dhow isla markaana si toos ah kaga amar qaataan xafiiska madaxweynaha waxa uu madaxweyne Farmaajo la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya amreen inay si toos ah uga amar qaataan xafiiska madaxweyne Farmaajo haddii ay hirgeliyaan amar aan ka soo bixin xafiiska madaxweynaha in lala xisaabtami doono kulankan waxaa dadka falanqeeya arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ay ku micneeyeen mid dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo uu kaga hortagayo suurtagalnimada inay dhici karaan falal lid ku ammaanka taas oo waxyeello ay ka soo gaari karto hoggaanka villa Soomaaliya dagaalka u dhaxeeya Cumar Finish iyo sidoo kale Cabdullaahi Carab ayaa wararku waxay sheegayaan inuu sii xoogeystay waxa sii xoogeysanaya loolanka khilaafka ka dhex taagan wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Carab iyo duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish dagaalkan oo bilowday markii Cumar Finish uu dalbaday in maamulka gobolka lagu soo wareejiyo isbitaalka Yardameeli iyo Jasiira oo wasiirku uu leeyahay ayaa haatan waxa uu saameyn adag u yeeshay arintaas ardayda Muqdisho agaasimaha wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faray jaamacadaha dalka inaysan qaban karin arday aan haysan shahaadada dugsiga sare saxda ah oo ay soo saarto wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya agaasimaha ayaana ku amray jaamacadaha dalka inay soo gudbiyaan xogta macluumaadka ardayda ay diiwaan gelinayaan muddo 20 maalmood gudahooda hadalkan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ayaa ku soo aadaya xilli khilaafka u dhaxeeya wasiirka waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu gaaray meer sare khilaafka u dhaxeeya duqa Muqdisho iyo wasiirka waxbarashada ayaa salka ku haya arrimo siyaasadeed oo ay ka mid yihiin soo wareejinta isbitaalada Yardameeli iyo sidoo kale Jasiira halka ay ku howlgalaan waxaana sababta sii xoojiyay markii uu maamulka gobolka Banaadir uu ku unkoobay in wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay ka soo wareejiyaan maamulka ardayda wax ku barata magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
loolankan u dhaxeeya gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la isku dayay in xal loo helo saacade waxa guul dareystay waan magaalada Muqdisho laga dhaxwaday wasiir Cabdullaahi Carab oo ah saaxiibka dhow ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in uu ra'iisul wasaaraha arintan uu ka gaabsaday inuu soo farageliyo maadaama khilaaf uu iminkan kala dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo gudoomiye Umar Filish ayaa ah saaxiibka dhow ee madaxweynaha halka Cabdullaahi Carabna uu saaxiib dhow leeyahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay taasi gabi ahaanba meesha ka saartay dadaal ay sameyn lahaayeen dhinacyo madaxa banaan oo xal loogu heli karay asaatay khilaafka labada mas'uul ayaa la sheegay in xalka kaliya ee laga gaari karo ay tahay in la soo afjaro xiisada ka dhaxaysa xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha dalka markan hadii aynu eegnana sarkaal ka tirsanaa ciidanka maamulka Puntland ayaa lagu dilay magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal wararka naga soo gaaraya gobolka Nugaal ayaa sheegay in xalay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka hay'adaha amniga ee magacooda loo soo gaabiyo BMBF ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland lagu dilay duleedka magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi dilka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay deegaanka laanta hawada la yiraahdo oo dhinaca bari ka xigta magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal sida ay shaaciyeen saraakiisha amniga sarkaalkan la dilay waxa lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Bootaan Maxamed Bootaan waxaana dilkiisa ka dambeeyay askari kale oo la sheegay inay murmeen ka hor dilka marxuumka ayaa ahaa nin dhalinyaro isla markaana ka tirsanaa saraakiisha rayidka ah ee hay'adaha amniga ee maamulka Puntland taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal gaashaanle sare Maxamed Aadan Jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhacdadaas ay dhacday waxa uu qeexay in askariga dilka geystay isaga oo dhaawac ah laga soo qaaday deegaanka uu dhibaatada ay ka dhacday kadib markii uu cararay ama uu isku dayay inuu halka ka baxsado gaashaanle sare Maxamed Aadan Jimcaale ayaa intaas ku sii daray hadalkiisa waxa uu qeexay in cadaaladda la horkeeni doono eedeysanahan loo haysto dilkaasi si looga qaado tallaabo adag oo waafaqsan sharciga sakasaba dilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal bartamiisa haweeney ay ku dileen ciidan ilaalo u ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani war ka soo baxay taliska booliiska isla gobolka Nugaal ayaa lagu qeexay in magdhow la siin doono qoyska gabadha ay dileen ciidanka ilaalada u ahaa madaxweynaha maamulka Puntland ee Maryama saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channel ka daawanaysan waa inaga inta aad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xeynteen dib u kulmi doono nabaddiino